Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, most merciful. Halkaas sawirka iga dambeeya waxa weeyaan University of Oxford, United Kingdom. Waxa weeyaan university-ga ugu sareysa adduunyada Oxford oo ku taala England. Taasay carruurteeda tagi doonaan. Waryaadhahan dagaal baa idinku soo socda weyn. Waxay doonayaan inay jaamacadda Hargeysa ay ku biirto jaamacadda Xamar ay ku biirto. oo halkaa maskaxda laynaga dagaalamo sidii beriga laynaga dagaalami jiray maskaxda ma garanaysaa anigoo yaroo carruuro dhowr 10 jir waan ahaa ayaan maalin waxaan maqlay inan ardayahoo agtiina iga weynaa walaal ilaa 20 jir ahaa mid iga walaalahoo weyn ay saaxiib yahay ina xaaji xasan galaal la odhan jiray oo caraysina ooyayo wuxuu yidhi dadkii muqdisho carruurtoodii wuxuu yidhi dhalinyarada kubad bay ku ciyaarayeen xamar wuxuu ku soo noqday baa wuxuu arkay dadkii carruurtii uu la kuwii kubadda ula ciyaarayay oo ku wada sheekaysanay jaamacadee wada ku jirtaa waxaan ku jiraa dhaqaalaha waxaan ku jiraa jaamacadda inaguma aynu lahayn ma ogtahay iminka laakiin sidii aynu wadankii ugala soo noqonay ma garanaysaa muqdisho madax banaanadeedii jaamacadaheena ugu sarreeya waxa East Africa ku yaala badankooda oo dhan iminka runtii weeyaan taasi niman reer xamar oo halkan degan agtayda London ayaa carruurtooda markay ku noqdeen Soomaaliya waxay u direen jaamacadda shiikh bay u galeen imtixaanka shiikh bay u doonteen mamana inay tahay adigu iskuulla Somaliland ayaa carruurtooda lagula taliyay inay galaan iyagoo muqdisho degan ayay intay Somaliland yimaadeen carruurtooda u dirteen because waxay aaminsan yihiin Somaliland waxbarashadeedu inay aad u sarreyso taasaa laynaga dagaalamayaa ha maqlina xamar ha qabanina maalin dhowba ictiraafkii inoo soo dhow yahay carruurtooda waxay iman doontaa jaamacadda iga dambaysa Oxford University haddaad dhegaysataan markii Gavin Williamson uu ka hadlayay baarlamaanka uu u dagaalamayay Somaliland wuxuu lahaa Somaliland markay ictiraafka hesho carruurtooda waxay imanayaan jaamacadaha UK bay imanayaan xamar hayna geynina waa cadowgeennii koowaad weeyaan mid waalantiin jaamacadda Hargeysan la hadlayaan toos ula hadlayaa ha la xidhanina xamar wallaahi wabillaahi watallahi waxaa laydinkala dagaalamayaa waxbarashada carruurteenna ayaa doonay si kale markay noo gaari kari waayeen ayay doonayaan inay xagga waxbarashada inagala dagaalamaan waan idin baryayaa ha qabanina ha ka tegina Somaliland waddankeena fiican iimaansada annaga ogo England baan joognaa kuwa reer xamarka halkan jooga baa yidhaahdaa waxbarashada waddankeenu aad buu uga sarreeyaa Soomaaliya waa wallaahi rumanka idiin sheegaya ha maqlina dagaal baa laydinkula jira aad iyo aad xagga waxbarashada Hargeysa jaamacaddu xamar ha qabanina ku dheh sida maalinta aad xamar u qabataan ayay u guuranayaan wax alla wixii waxbarashadeeda carruurta oo dhan ayay nagala dagaalamayaan maya ha samayna waa idin baryaye ha qabanina muqdisho